السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحبتي قالي kusoo dhawaada channelkeena gacmo furan iyo qalbi furan maanta waxaan wadaa cabitaan oo maasha Allah tabarakallah dhiiga ku soo celinayo immunity boost ku sameynayo asxaabta hergebka haysta sida aniga camal ka qabo wado ku hayo maasha Allah caafimaad tamaam ah ku helaysa cabitaankaaneeto waa aragtiin soo seek u yahan ku dhaa asxaabe wax baraf iskiga madareysid إنما عادي ما أكون أصحابي سوري دواء وحكاب عبتانك داوشة وعن فيديوغا بسم الله إن أصحابي هل كانوا حاكوها السنة بيتروت أما بتراف أو تقانيت ما شاء الله عبتان كانت سبايسس هكو درسانينا وإلى أركدونتين إن شاء الله وأسير أو فضوضا كودا أصحابي إن كرال نقض عد كيغن إن حوغا واسكيهر قبسانا هاي codka dhagaha niga xanuujiyo sorry aan leeyahay asxaabe marka beetrootka qolofka ka fiiqanayna waxa sameeynayna waa great gareynayna waxaan ku hooleynaa asxaabe baasha karootada lagu hoolo aan ku great gareynayna insha Allah labada xabo beetrootka adaarta ka badsan karta adaarta ka yareysan karta cabitaankaaneeto wax oo sokor ee lagu madaraa doolaha idmo waxaa isticmaalana malab waaye waxaan ka rabnaa caafimaad maasha Allah tabarakallah xaajiga ugu soo dhisaa ku dhaa asxaabta xilliyada qabowga aad iyo aad ugu fiican yahay cabitaankan asoo wooma cabi karta asoo qabooba cabi karta adaa jecela ku dhaa choice-ka adiga iskale maasha Allah marka aniga waxaa ana sameysanahay marka waxaan dhaa asxaabtaada kale la wadaag marka bitraafka maasha Allah tabarakallah waxa waa dhiig iyo soo celisaa immunity boost ku sameynaysaa cabitaankan vitamin C waaye maasha Allah wax isku dheelitiran waaye asxaabay digsiga dabka soo saartay waxaan ku soo shubay bakeeri iyo barbiya waxaa ku soo daraa beetrootki waxaa rabaa beetrootkaas inay soo karkarto waxaan ku darsanaynaa qorfa yar zanjabiil aan soo hoole hal xabo istaa iyo dhagayaro maasha Allah spices kanet waxay ka dhigaysaa carafa ku dhaa zanjabiilkan wuxuu ku siinayaa kuleel yariis ergabkii waxaaseetu u fiican yahay maasha Allah tabarakallah lagama sheekeyn karaa ku dhaa asxaab beetrootkan saas u dhiima ku dhaa wadareedo noqo dabkan ka dimiye markoo 10 daqiiqo camal karaaye hadda waxaa sugaynaa wax yar soo inoogu qabowdo kadib waxyaala kale aan isticmaaleyna aan ku darsan doonaa doo ilaahay idmo asxaabe halkan waxaan ku haystaa 3 xabbo limon orange waan soo dhaqay waan soo fiiqay qolofka kora ka soo fiiqay asxaabe waxaan rabaa liintaneeta inaan shiito waxaan ka bixinaa hadda waxaa waa lafaha dhan ka miraa doo ilaahay idmo waayo laf dhan ma u fiicno adoo lafta ku gasho qaraara ku galinto ka qaraaraan juuska qaraaro ka noqona marka insha Allah tartiib leh u fiiqa ku dhaa asxaabe wax laf dhan ka saara de laf soo gasho marka cabitaankaaneeta hergab iyo xanuunsantahay maasha Allah ku fiican yahay waa caafimaad ku dhaa wax biyana lagu mashiidaa beetrootkaas bisa ku shiidanayna doo ilaahay idmo maasha Allah waa diyaar halkan kalena waxaa ku haystaa ananas 2 xabbo ananas waaye siiriira u jarjara waxaa rabaa inaan ku dhex shiito 2 jeex waaye 2 faliiq oo ananas waaye waxaa rabaa ananaskaaseet inuu dhadhan dhanaan yariis u yeelo oo dhadhan isku dheelitiran isku noqonaysa doo ilaahay idmo maasha Allah waxaa sugaynaa waxaa waaye waxaa sugaynaa maxaa la dhahaa beetrootki wayna noo qabowdo waa kana 2 xabbo liin dhanaanta
halaantaas ku cabtaa ku dhaa asxaabay hergabka fax oo kale leeyahay aniga 2 maalin ma hadli karin bocodka dhan iga xirnaa marka cabitaankan la isku qabanayo inkastoo aan jecleen juice waxaas ma jecel laakiin marka xanuunsantaa naftaada waa inaa wax yariis oo ugu soo turtaa marka asxaabay waxaa iska ilaalisaa oo kaliya liinta aniga qolofka maxaa la qolofta dad ku gasho qaraari ka noqone haddii lafta ku gashana qaraari ka noqone marka juice-kaaga inuu macaan ku noqdo daarta lafaha dhan ka saara ku dhaa tartiib time-kaaga qaado juice heer sare ku soo baxaa doo ilaahay idmo akaas lafaas ka gureena maasha Allah asxaabi beetroot-keena waa kaasa marka hore waxaan iska bixinaynaa qashinki oo spices-ki iyo maxaa la dhahaa beetroot-ki dhacaanka ka reebanayna haddii spices-ka ku shiidid cabitaanka wuxuu ka noqonayaa qaraaro ka noqonaya waayo marabna zanjabiilka oo maxaa la dhageeraha qorfa inaan ku dhex shiidno dhadhankiisa bas leerabna maana marabna anaga spices-ka dhan inaan ku dhex shiidno marka saanaad wax yar sugeena intuu noo qaboobo asxaabay blender-ka soo qaadana waxaa ku soo shubnay biyo oo beetroot-ka waxaa ku darsanayna waxa waaye qudaarteena oo soo hagaajisane waxa lafaha dhan aan ka soo bixine waxa raba inaan soo shiido wax baraf lagu ma shiidaa wax sokorna lagu ma shiidaa doo ilaahay idmo inta la isku soo shiideena biyo kalena lagu ma daraayo maasha Allah tabarakallah cabitaankeena waa kaas waa soo shiidane hadda waxaan sameynaynaa qashinka iska miireena asoo warm cabi karta asoo qabow cabi karta wuxuu ka diidaa mal ana soo qandaca cabaaye maasha Allah qashinka dhan ka bixinaysa wax biyana kuma darin wax biyo dambana lagu ma daraa intaas la isku cabaa asxaabay maasha Allah tabarakallah waa cabitaan inaba caadi ahna meesha ka soo baxay oo healthy oo nafta u roon nafta ku qaboojinaysa asxaabay maasha Allah tabarakallah cabitaankeena waa inoo diyaar hadda waxaan soo qaadanay hal hab liin oo 3 gabal ka soo dhignay waxaan sameynaynaa cabitaankeena ku soo shubanaynaa waa seeka ku dhaa wax sokor lagu ma darin haddii aad macaan rabtid malab yar qaando malab yar ku darsanaysaa waa kaas inaba caadi ma asxaabay haddii aad dhadhan yar rabtid malab yar ku darsanaysaa qaando yar malabka xataa macaan oo natural waaye wax ma ka dhibaa haddii kale sideeda ku cabi kartaa maasha Allah tabarakallah asxaabay waa kana cabitaankeena inaba caadi ma ku dhaa baraf ma lagu daraayo daarad baraf ku darsan kartaa liintaas ka cunaysa marka cabitaankaaga cabtid waa seeko waa healthy haddaad igu cusub tahay ku soo biir channel-keena subscribe like comment share intaba nagu caawi soo dhawaada asxaabay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh